kulanti wacan oo wanaagsan idin lahantiin baa meel walba naga daawanaysaan khayrtiina la socotay kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga ee maqal muuqaal baahiyaha STN xaruntiisa dhexe magaalada Nairobi oo iminkaba si toos aad u daawanaysaan hadaha iyo kalena aad uga barateen STN inaad ka daawataan anagoo markaasi idin kugu soo gudbinayna qodobo kala duwan oo aad iyo aad u xiiso badan barnaamijkeegana aad ku daawan doontaan hadduu Allaha awoodo leeyahay daawadayaal sida aad la wada socotaan ama aad ogtihiin xaaladaha kala duwan ee Soomaaliya ka soo yeeraya waxaa kamid ah shirka wada tashiga qaran ee ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee dalka dhinaca kale iyaduna waxaa socda khilaafkii wali u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo ra'iisul wasaaruhuna dhawaan uu soo saaray guddi ka kooban 5 qof kuwa oo markaa iyadoo laftirkeeda si aad ah aragtiyadooda aan markaa looga falceliyay iyadoo markaa dadku ay siyaabo kala duwan arintaasi uga hadleen kaasoo ku saabsanaa in guddigaasi ay soo baaraan waxa loogu yeeray afgambi dhacay 17kii December sida markaasi ay hadalka u dhigeen ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale xubnaha kale ee dhanka siyaasaddiisa ku heliya haddaba barnaamijka waxa igala qayb galaya hadduu Allah awood leeyahay oo maanta marti ugu ah Dr. Cabdi Cali Xasan oo markaas isagu ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan baarlamaankii 10aad ee iminka muddadiisu sii dhamaanayso sidoo kale waa cilmiga dhaqaalaha ayuuna bartay dhanka beeraha waana PhD holder isagoo markaasi wax badan ka og arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya muddo fara badan markaasi ku soo dhex jiray xildhibaan soo dhaw barnaamijka STN aad u dhawahay maxamed aad waa ku faraxsanahay mar kale inaan isku soo laabano iyo xaruntiin waayahay xildhibaan waad mahadsan tahay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iminka si weyn ayaad ula socotaa marka aad eegto xaalka iminka sidoo yahay xagee bay ku socotaa Soomaaliya maxamedow Soomaaliya horta waxay ka soo bilaabatay meel aan oran karo naxdin leh mugdi ah iyo ka soo bilaabatay maanta Soomaaliya waxay maraysaa maxaa la yiraahdaa waxay maraysaa meel wanaagsan marka la fiiriyo 2000 dawladii Cabdi Qaasim meesha aan joognay iyo maanta meesha aan joogno dawladii Cabdi Qaasim waxaan joognay dagaal sokeeye dad ka soo baxay meel warlords hub isu haystaan xaafado ay u kala xirxiran yihiin maxaa la yiraahdaa dadkii Soomaaliyeed kala irdhoobay qolaba nin hub haystaa meel ku xirtay maanta waxaan maraynaa dawlad dalal badan oo dariska ay cawrinayaan oo ay leeyihiin wixii aan soo dhisnay oo maalinba aan meel keenaynay in ay noqdeen wax la oran karo dawladda Soomaaliya meelaha qaarkood waxay ka horumarsan tahay dalal badan oo aan qaarkoodna dagaal ka dhicin qaarna dagaalka horteen ka soo kabtay xagee u soconnaa waxaan rajaynayaa meel fiican inaan u soconno laakiin meel kasta oo loo socdo Soomaalidu waa dad reer guuraa saa ogtahay maxamed reer guuraaga dhaqankeena wuxuu ahaan jiray reerka meesha loo raraayo waxay ku xirnaan jirtay odayga reerka isaga haddii sahan loo baahan yahay soo sahminayay meel barwaaqa oo roob leh oo baad leh oo xooluhuna ay ku bulaalayaan dadkuna ku bulaalayo barwaaqa in loo raro dhaqankeena ahaan jirtay siyaasaduna waxba kama duwana siyaasad sideeda marka laga hadlaayo waa ka shaqaynta nabad amni iyo xasilooni in shacabkaas uu helo iyo siyaasaddu in wax soo saar iyo horumar iyo barwaaqo iyo bulaalid in bulshadaas ay hesho siyaasad waa labadaas iyo xiriir istiraatiiji oo muddada dheer oo sidii labadaas loogu hayn lahaa bulshada ayaa siyaasadda la dhahaa saddexdaas ka kooban tahay marka Soomaaliya waxaan rajaynayaa inay u socoto meel fiican laakiin Soomaaliya caqabada haysato oo meel ay u dhaqaaqi laadahay waxa weeye hoggaanka mar walba yimaada saan ku sheegay reer guuraaga cidda balaalowda oo barwaaqo iyo xoolo tiro badan samayso oo Soomaaliland dheer isugu faantaa noqota ciddii hoggaan fiican hesho oo dhul barwaaqo ah oo xoolaad ka fog oo wax soo saar leh oo xoolahoodu ay ku badanayaan yaa horumar samayn jirtay haddii marka odaygu uu reerkaas ka xumaado waxaa dhici jirtay in abaaro ay la kulmaan in colaado ay la kulmaan in
taana ay keeni jirtay mahmaahda qadiimka ah ee aan aada u jeclahay marar badanna aan isticmaalo markaan siyaasadda ka hadlaayo ee ah walaale isxinshaa waana xoolo yareeyaan waana xabaalo badiyaan laakiin positiveka dhinaceeda wuxuu yahay oo hoggaanka meesha ka muuqato oo loo baahan yahay ninka hoggaanka mar walba inuu ku fakero walaale isxambaarta ama isxiriirshaa waana xoolo badshaan waana xoolo badshaan maxaa la yidhahdaa waana xabaalo yareeyaan macnaheedu waana tarmaan waa dhaqaalo badanna waa samey horumaray sameeyaan marka soomaaliya waxaan rajeynayaa hadda madaxweynaha hadda fadhiya 5 sano u helay waqtigiisa waa soo qaatay waana tartamaya oo doorashada soo socota nasiibkiisa uu qabaa wuxuu la siman yahay madaxda kale rag badan oo horey madaxweyne u soo noqday Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waa tartamayaan dowladana waa xarig isu dhiib nin walba ku fadhiyo markuu fadhiyo wuxuu yiraahdaa aniga keligay Soomaaliya cirka geeyay wixii igu horeeyay ma jirin hadda ka hor 2013 meel qadaa isugu nimida wasaare cali maxamed geedi iyo siyaasiyiin kale isugu nimid marka ereen jeclaystuu yiri wuxuu yiri maadaama uu yahay kamid aha hogaamiyaashii ugu horeeyay oo bilaabay oo qof walbana dee libina u muuqata marka uu joogo oo gaaray oo xaqiiqdii isagay madaxweyne cabdullaahi yuusuf libintooda ugu weyn inay caasimadii dowladii keeneen madaxtooyadii albaabadeedii fureen ama dowladda cabdiqaasin kamid aha madaxweyne cabdiqaasin qol yar u deganaa ya oo hadda aragto foolxumadiisa madaxweyne meesha maday karaa isleedahay marka wax la taaban karo inay markii ugu horeysay xataa warlorska hub ka dhigeen ya wasiiro ka dhigeen barafkii ugu adkaa ee mucaaradnimada lugaha ku dheganaa ay jabiyeen ya Sheekh Shariif ay imaanaysaa constitutionkii uu ansixiyay markii ugu horeysay doorasho dalka lagu qabto ka shaqeeyay wuxuu sameeyay maxaa la yiraahdaa shabaab ka saaray xamar guulo waaweyn oo aan cidina aan qari karin laakiin mar walba kan ka dambeeyo imaada eber waayu leeyahay anaa hadda bilaabay has sheekha yimid asna waxbuu qabtay wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedyadan hadda arkayno yuu aasaaskooda dhigay marka Puntland laga reebo ya Sheekh Shariif waxbuu ka bilaabay laakiin basekeeda waxa iska leh oo sheegan kara oo dowlad goboleedyadan inay dhismeen oo laga soo gudbay dimuqraadiyad loo soo gudbay oo qolo walba dowlad ay leedahay wasiiro ay leedahay madaxweyne ay leedahay ay ku qanacday inay hesho madaxweyne farmaajo yimid asoo waxa soo fursado ay dhisan yihiin uu yimid inta waxa barbar socdo oo dowladnimada Soomaaliya asal waa wata hadda kula siyaasaddu waa amni iyo wax soo saar iyo horumar iyo xiriirka labada sidii caalamkana loo gadi lahaa bulshadana ay ugu bulaali lahayd xiriirka caalamku xoojiyay aad u dhisay caqabadihii xiriirka caalamiga ka haystay oo in aan dowlad loo aqoonsanayn Soomaaliya in la dulmo burburiyay dowlad hal ninka amar qaadato oo caalamku uga dambeeyay noqotay dibiga gowrac weesha ku qoos qaadatay nin aan weligiis caalamka meelna laga ceerin oo persona non grata u jaray ma garatay oo qaramada midoobay anaga kamid ah nin adiga oo xafiiska ka tirsan ma dhihi kar dalkayga ma ibaanay qaramada midoobay anaga xubinka ah laakiin waxay ahayd siyaasad oo ismiidaamin ah oo hore aan caalamka uga dhicin laakiin waxbay tartay waaga wixii ka dambeeyay la yiraahdo nimankaan hal iska jira horta nimankaan waxay ahaayeen aan iska fiirino ma garatay marka mahmaahda Soomaaliyeed oo libaxna aqoona laxkarit ay noqotay marka asna wuxuu ku soo zaa'idiyay xiriirka caalamiga ee Soomaaliya dariska ha noqoto inkastoo wali caqabada meelaha qaarkood Kenya iyo ay naga haysato oo ay ka jirto oo wanaagsaneen xiriirka dawladda Kenya iyo Soomaaliya haddana laakiin Ethiopia oo ahayd Soomaalina lagu soo ababay cadawgeena koowaad oo lugta nagu dhaganay Tigray oo namijixaabinay uu soo afjaray marka Kenya nasiib darro wax la isku haysta badda ugu weyneed oo keentay ayadina maxkamadaas loo diray xogaa dawladda Kenya kuma qancin ayadana wax la xalin kara way hadduu asaga xalin way madaxweynaha cusub oo imaada Kenya wuxuu ugu badan inaga haysaa waxyaabo badan oo ayadu nafteeda ay nagu sheeganaysaa jira marka waa xiriirka caalamiga oo ka hadlaya siyaasadda oo aasaas u ah in dadkeen wax soo saaro kobac sameeyo horumar sameeyo ku xiran iyo tii kale oo ahayd maxaa la yiraahdaa amnigii
dadkan in amni xasiloon ayagana ay ku wada noolaadaan dadka deriskana ay kula noolaadaan asaasku wahay waayahay xildhibaan waad mahadsan tahay arrimaha taagan iminka ee soomaaliya sida weyn la isugu haya waa arrimaha doorashooyinka tan iyo sanadkii hore waxaa lala rafanayay in doorashooyin soomaaliya ay ka qabsoomaan shirar badan baa la galay dhuusamareeb baa lagu galay muqdishoa lagu galay kismaayaa lagu galay garow waa lagu galay baydhaba mar danbaa la isugu tegay haddana waxaad moodaa weli arrimihii doorashooyinka inay dhaqaaqi laayihiin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya wixii loo riday waxaa qayb ka ahaa inuu ka shaqayn waayo arrimihii dhanka doorashooyinka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iminka khilaafkoodii banaanku usoo baxay sababo la xiriira weli arrimihii doorashooyinka soomaaliya ee 275 xildhibaan lagu soo dooranaya imisa sanay socon kartaa ani waxaan qiyaasaa ilaa agost waa soconaysaa qiyaastayda way ragaa ila yaabanaa sanadkii hore waraysi ay iga qaadeen waxaan ku yidhi ilaa february sanadka soo socda hadda dood kama taagna february in la gaarayo laakiin hadda markaan haddana sii fiiriyo ani waxaan isleeyahay ilaa agost weliba laisla dabajiyo waa iska dabajiitamaya marka aan saan u saadaalinayo waxaan u malaynayaa inaan ka mid ahay xildhibaanadii ugu badnaa haddaanan ahayn labada xildhibaan oo ugu dooda badnaa doorashada ya kan koowaad haddaanan ahayn shanta ugu dooda badnaydaan ka mid ahaa oo ka hadasha doorashadan doorasho dadban aniga waa diidanaa waxaan idhi waa xaaraan waa dadka isku sii diraysaa waa doorasho qabsoomi karta ma ahan cilado badan oo tiro badan oo youtube-yada ku jira aan ka sheegay dadka marka ku dagaalamaya lahaa doorasho dadban waxaa loo dooranayaa in doorashada aan soo dadejino waktigeeda ay ku dhacdo lahaa ani waa ka duwanaa xalim yare waa guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa banaan baarlamaanka markay noo timid bishii abril 2020 ay naga codsatay in oo aan fursad u siina inay doorasho qof iyo cod ah ay qabato oo 2 sano ah ha maya muddada ay qabatay waxay ahayd haddaa dadejis rabtaana bisha 3aad 2020 yaan qabanaya markay noo timid 19 ahayd ya waxaan qabanayaa march 2020 hadday dib u dhacdana september 2020 ya labadii hadda lama hayo maanta waxaan maraynaa 2021 yaa ilahayd ayadu maanta 22 maraynaa macnaheedu waxaa way ka fududeed aniga waa ii muuqatay ayada waa u muuqatay dad badan oo xildhibaanada kamid oo dooda nagula jiray waa u muuqatay waayo adduunka waxaa laga hadlayo waxaa soomaaliya o dhan ma dooranaysaa adduunkaba shacabka dal kastoo aad tagto maraykanka ugu weyn shacabka o dhan doorasho ma tago doorashada horta mar haddii dimuqraadiyad tahay rabitaan way rabitaan qofkii raba adoo xaq u leh inaad qof doorato haddaad rabto waa seexanay ma dooranaysa ma garat marka tan outka haddaa fiiriso waxaa la dhahaa doorashada dadka isu soo baxay 30% ay ahaayeen dadkii xaq u lahaa macnaheedu dadku ayagaa doorasho leh dadka ma la soo karbaashayo ma garat xaliim marka waxa ay lahayd guddoomiye xaliim wuxuu ahaa aniga santuuqyaan dhigaya degmada ceelwaaqa ka timid santuuqaan dhigaya hadday 5 qof soo baxdo 5taas intii aydan kala dooranayso adiga waxa kula tartamaya ninkii oo 3 helo yaa kursiga soo qaadanaya hadday 500,000 soo baxdana magaalada muqdisho ninkii loo dhigana ninkii helo 250 qaadanaya ma garat meeshii 10,000 2,001 ninkii hela qaadanaya hadday 5 tartanto marka way ka fududeed weliba march markay lahayd 2020 kaan qabanaya waxa ay 21 waxa ay xusayso wuxuu ahaa doorasho aan register loo baahnayn way ka dhacday dalal badan oo caalamkii ka dhacday register ma loo baahnaa maalinkaas dadka soo baxal register garaynaya maadaama ay dadku xor u yihiinba marka horeba inay ayagu iskood u baxaan oo doorashada inay ka qayb qaataan inay ayagu go'aansadaan marka ninka markuu go'aansado oo meeshii yimaado register garaynaya caalamka inta kale horaa loo register garayaa waxaa la yidhaahdaa dadka doorashada xaq u leh yaa kaar loo soo diraa marka kaarkiisuu soo qaataa ninkii raba doorashada kii kalena gurigu qashinku isaga daraa marka qof caalamka soo arkay ahayd xaqiiqdii waa la qaban karay ya boobka hadda la sameeyey oo aqalka sare aan aragnay oo golaha shacabka aan aragnayna ma dhicin kan soo socdo hadda dhici doonana ma dhicin ya xataa haddii oo la isboobo boobku waa ka yaraan lahaa annagana dee waxaa loo socda waxaa dal burbur ka soo kacay dad ishaysta dhibaatooyin badan soo maray
waxaan u baahannaha in weli madaxa la isu salaaxo laakiin doorasho toos ana waa soo marnay doorashadan dadban oo hadda la sheegaya xataa gudaheeda haddaan fiiriso doorasho oo toos majoritaar ah wey markii konton iyo kooga kusoo xulato majority qofkay doortaana soo baxay waad mahadsanta xildhibaane dhowaan madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka qayb galay munaasabad loo dhigaya booliska soomaaliya dadkii kala qayb galay waxaa kamid ahaa gudoomiyaha iminka weli xilka haya baarlamaankii tegay ama xilkiisa sii dhamaanay inkastoo xilkii uusan si sax weli u wareejin maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan goobtaas ayada wuxuu xabiyi uu ka sheegay waxaa kamid ahaa in ra-iisul wasaaraha muddada uu haysta ay tahay tan iyo dhammaadka bisha December oo 14 bilood ay ugu talagaleen dhinaca doorashooyinka inuu asagu kusoo qabto xildhibaanadii baarlamaanka ee waxaad kamid ahayd madaxweynuhu uu hor yimid markii iyaduna ra-iisul wasaaraha lagu wareejinayay arrimaha la xiriira dhanka doorashooyinka ma waxaa jirtay muddo loogu talagalay in doorashooyinka uu ra-iisul wasaaruhu isagu kusoo afmeero maxaase keenay in gudoomiyaha baarlamaanka aminkan uu furo chapterkaas kaasoo isaga laftigiisa sameeyay khilaaf abuurid cusub oo marka dad badan ka qayliyay khilaaf abuurid maahan siyaasi way gudoomiyaha baarlamaanka qof siyaasi ah markuu yimaado oo fursad u helo uu ka hadlana laba waxa u muuqda dhaliil iyo wax la qabtay dhaliilihii u muuqday inuu wax ka yiraahdo waa waajib saaran qofka siyaasiga aragtidiisa iyo ku hadlaya horta sharci ma baahan is afgaradka siyaasadda waa sharciyeynay macnaheedu baarlamaanku mar waa la sharciyeeyay maahane 17 September heshiis siyaasadeed baarlamaanku sharciyeeyay la xaqiiqdii markaan sharciyeynay waa nala baryay madaxweynaha dowlad goboleed mid walba waa noo yimid qadu noo sameeyay waa idin baryahay bahalkan ha marka xildhibaanada nin kursigiisa u baqa nin yiraahda warniyo dalkan hadduu ku badbaadayo saan madaxweynihii doorashada iyo wixii dhan isku raaceen ay leeyihiin doorashadan dad banaan rabnaa xalaan u aragni iska ogolaada ya qofba si ha u yiraahdo horta is afgarad heshiis siyaasadeed u ahaa haddii marka heshiiskii siyaasadeed ee baarlamaanku u sharciyey ogow baarlamaanku waa dhammaaday iyo waxaan horta meediyaha u akhriyo oo siyaasiyiinta qaarkood ani aan u aqaano ma gudbayaal ay meelaha ka sheegayaan wax dhammaaday ma laha ya baarlamaan ani waxaa ahay ilaa xildhibaankii ibedel laha laga dhaarinayo xaqaygaan leeyahay shaqaa la iigu yeeri karaa inta 80% golaha shacabka ay banaanka taagan yihiin oo weli aan la dooranna anytime uu gudoomiye mursal isugu kaa yeeri asaga waa xildhibaan la doortay hadda laakiin xildhibaan maaha asaga xildhibaanka uu yahay waa kii baarlamaanka tobnaad ma garat ilaa asaga oo laga dhaarinayo oo asaga uu isbedelayo oo kaarkiisa u cusboonaysanay kaarkii hore uu xildhibaan ku yahay weli kaarar Kenya haysana hadda waa la cusboonay diyaar loo cusboonaysiiyay ilaa August waa noo July oo miyamsi June ya hadda dibna loogu cusboonay December uu dhacay kii hore ma garat wax kalena maaha dalkan faaruq inuu gal lama rabo annaga sharciyada ilaalina annaga sharciyada ka shaqeynaa marka maxamed mursal marka waxa uu ka hadlaayo geedkan toos maxamed mursal waxa uu ka hadlaayo waxa uu yahay maxamed mursal waxa uu ka hadlayaa wuxuu yahay haddii heshiiskii wadi la adihiin ya oo heshiiskii meel gaarsiin la adihiin waa ku noqonaynaa heshiiska ya mid wuxuu noqon karaa culays siyaasadeed oo pressure looga dan leeyahay si wanaagsan ma garad ujeedka uu uga dan leeyahay ay tahay nimankan karbaashka ku dhufo si ay horay ay ugu sii socdaan ma garad ama in ay run ka tahay oo uu leeyahay maxaa la yiraahdaa sax ma aha saan sanad kadib in afgaradkii siyaasadeed ujeedada aan u ansixinay ujeedada uu baarlamaanku u ogolaaday ee ahayd in doorashada muddada la soo gaabiyo waqtigii gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan Xaliim Yare ay sheegtay idinku dheeraaday waqti ka yar aan rabtaan November 2020 aan rabtaan inaad dhammaysaan doorashada waa socon weyse sanad kala dhamaaday marka sharciyadaas waa buri kartaa marka sharciyadaasi ma ahayn sharci oo ku qoranta maal heblo ilaa maal hebla gudoomiyaha anytime uu keeni kara gudoomiyahana baarlamaanka waxa la keenayo saddex waxay ku yimaadaan gudoomiyaha asagay ka bilaaban kartaa inuu yiraahdo baarlamaanka isugu yeero isu imaada arrintan siyaasadeed maxaa la yiraahdaa waa shaqayn weyday maxaa xal dalkan u ah ya dalkan dagaal sokeeyuu galaya waxa dhaar iyo ka baxaya hadda magaaladii waa arkaysaa meelo kale oo goboladii ay dagaalo ka furmeen Puntland shalay boosaasi ka socdeen maanta haddana
mudugay haddana dagaalo cusub ka bilowdeen marka haddii doorashadii waxyaabo badan oo caqabado badan daraaddeed ay u socon laayihiin sharcigeenii kala doorashada waxyaabo kala banaynayay guddoomiyaha waxaa laga yaabaa inuu shuruucda kala akhristay labadaasba waa noqon kartaa inuu culays siyaasadeed uga dan leeyahay uu leeyahay hala dardar geliyo doorashada iyo inuu uga dan leeyahay maxaa la yidhaahdaa nimankan waa fashilmeen baarlamaankan isugu yeeraya go-aan kalaan qaadanayna labadaba xaq uu leeyahay cid dhihi karta ma lahan maxaa u tiri waa sax waxaa laga yaabaa khilaafa meeshaas kasoo uraaya de waxay ka mid tahay nimankaa siyaasiyiinta ee maalin walba hadlaya ama madaxweyne ha noqdo ama ra-isul wasaare ha noqdo ama midooda musharaxiinta ha noqdo ama siyaasi kale oo aqoon-yahan oo banaanka jooga ha noqdo mid walba wuxuu isaga hadaaqaya wuxuu asaga markaa dan mooday laakiin haddii la fiiriyo positive iyo negative leba oo dhinacna la dhihi karo dagaalay abuuri kartaa dhinac la dhihi karo maxaa la yidhaahdaa waxay abuuri kartaa maxaa la yidhaahdaa inay soo dedejiso in waxaan xal laga gaaro way laakiin sida saxda iminka aad ku waramaysid ma jirin heshiis saxa oo dhigayay in 14 bilood la siiyay ra'iisul wasaaraha si uu ugu soo afmeero arrimaha ka doorashada maya heshiiska kuma qorayn maalin hebel yaa lasoo afjaray laakiin dee heshiiska de waa heshiis ya shalay waxaan aqbalnay ayagu inay heshiinayaan oo waxaan fulinayaan ayagii marka hadday caqabad noqdeen oo dagaalayaan annaga waa kala noqon karnaa soo ma ya marka ujeedku dee anigo aan qiyaasayo guddoomiyihii kalama sheekaysan laakiin guddoomiyihii xaqu u leeyahay wuuna dhihi karaa wuxuuna ka mid yahay siyaasiyiinta dee arrimaha soomaaliya falanqeynaysa xalka suu la yahay maxaa la yidhaahdaa ka hadlayo waa hagaag aad baad umahadsan tahay mudane xildhibaane dhinaca kale markaan eegno arrimaha la xiriira dhanka shirka madasha wadatashiga qaran baa isagu laftigiisa iminka socda waxyaabaha looga hadlayo arrintaasina waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira dhanka doorashooyinka shirkaasi ra-iisul wasaaraha iyo waxaa isugu yimid iyaduna madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliya taasoo markaasi iyaduna si toos ah iminka wali ay u sii socdaan oo arrimahooda wali hawshooda ay socoto dhanka kale marka la eego isla shirkaasi madasha wadatashiga qaran ee iminka Soomaaliya ka socda ma ku muuqdaa inuu yahay mid xal lagaga gaarayo arrimaha la xiriira dhanka doorashooyinka ee Soomaaliya iyadoo la fahanteeda hawsheeda ka socoto maxaa la yidhaahdaa xal wuu u yahay wada hadalka shirkan haddaan la wada hadlin maxamedow ciidina haddaan la wada hadlin ciidina ma oran karto xal halkaasuu jira ujeedku waa in la wada hadlo ujeedku waa in dadku ay wax isku afgartaan ujeedku waa in qolo walba caqabadeeda ay garato ujeedku waa in qoladii maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa tanaasusha wax ku bedelato waxay u tanaasuleyso aan wada hadalna aan heshiina way marka mar kasta oo shir la isugu yimaado rajada Soomaaliya waa soo fiicnaataa waxa hadda dhaqaaqayba aqalka sare inuu soo dhamaato doorashadiisa in golaha shacabka doorashadiisu ay socoto waxa keenayo waa wada hadalka mar walba la yeelanayo mar kasta oo shirku wada hadal uu imaado mar kasta oo dadku ay meel isugu yimaadaan siyaasaddu waa dan give and take way buug ugu horreeya siyaasad buug kastoo siyaasadeed haddaa furto waxay ka bilaabataa isii aan ku siiye ya aan wax isu kala bedelano marka waa rajaynaya waxaan ogahay cabdilcaziz lafta garen danuu leeyahay danta uu leeyahay wuxuu ku bedashuu haystaa ya axmed madoobe madaxweyne axmed maxamed islaam danuu leeyahay wuxuu ku bedashuu haystaa madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo rooble dan siyaasadeed oo ay wax ku bedashaan ay haystaan marka haddii la wada fariisto dabcan waxaa imaanaya waa dad soomaaliyeed oo isu yimid waxaan khilaafkan lagu dagaalamayo aniga adiga inay lacagna siiyaan inay adigu siiyaan inay siiyaan ma ku dagaalamayaan abaaraha Soomaaliya ka jira ma ku dagaalamayaan maxaa la yiraahdaa kalluunkeena sidii loo horumarin lahaa waxsoosaarkeena ma ku dagaalamayaan waxa la isku haysta waxay tahay nin walba xildhibaanadaas cod inuu ka helo ama qof uu asagu danaynayo inuu cod u helo yaa la isku haystaa
marka taana dee waa wax dadkao dhan ka dhexeeya oo midna aan qofna aysan jeebka ugu jirin marka si uu qof walba inta ugu badan iyo waxa rabo oo uu rabo uu danaynayo uu u helo wuxuu diyaar u yahay inuu wada hadal furo oo wax ka tanaasulo. waad mahadsan tahay. waxyaabaha iminka aad isha loogu hayo waxaa ka mid a dib u furista heshiiskii 17 September. waxyaabihii uu dhigaya waxaa ka mid a laba deegaan doorasho in la sameeyo. tusaale Jubbaland oo adigu kursigaaga uu yaallo kale in Garbaharey iyo Kismaayo lagu kala qabto dhanka doorashooyinka. kulanka shalay wuu furmay. waxyaabihii uu furmayna waxaa qayb ka ahaa in uu sii socdo isla shirkaasi isaga ah maadaama shalay furitaan uu ahaa. maanta nuqulada horyaalla ee aad looga hadlayo ama la isku hadlayo waxaa ka mid ah in hal deegaan doorasho lagu soo koobo iyadana arrintaasi iyada dib u furis lagu sameeyo marka heshiiskii 17 September. khilaaf intee leeg baa ka dhalan kara, caqabad intee leeg buu doorashada ku noqon karaa, mase u muuqataa inuu yahay mid horey u riixi karo oo fududayn kara arrimaha dhanka doorashooyinka? ani haddaa i weydiiso ani waxaan qiyaasaya wuxuu soo gabagabayn karaa waayo madaxda hadda oo markii hore doorasho dadban iyo laba deegaan doorasho iyo ku fakeraysay way arkeen riyadii ay ku jireen ee ahayd in doorasho dadban bil iyo 2 bilood lagu soo afjari karo inaysan sax ahayn way arkeen maanta. marka doorashadu xalka ugu weyn oo Soomaaliya hadda oo qof walba uu arkaayo uu isleeyahay xalka ku jira yaa wuxuu yahay in doorashada la dardargeliyo. xal kale ma jiro. haddii kale dee waxaa dhacaysa dee maalin walba waxaa arkaysaa in qola leedahay qoraan wada soo qaadanaynaa intaan ka ridaynaa derbigaan ka boodaynaa waxaasoo dhan hadadaad iyo waxay u imaanayaan waxay tahay qof walba wuxuu rabaa bahashaan doorashadan inay inta soo afjiran damaciisa siyaasadeed oo ka guul gaaro. marka ha noqoto madaxweyne Farmaajo, ha noqoto ra-iisul wasaare Roble, ha noqoto nimanka musharaxiinta oo tirada badan oo qaar midowga musharaxiinta la bixeen qaar guryahooda joogaan oo idaacadaha iyo ka hadlayaan oo qaarna aan weli aan ku dhawaaqin kulligood waxay ogyihiin dantii inay ku jirto in doorashadan soo gabagabowdo. marka doorashadan si kastoo ay ku gabagaboobi karto in la isku hortaagnaado laba deegaan doorasho haddayna ahaanin ma soconayso xal maaha. waa arkeen waqtigii ay qabsadeen laba deegaan doorasho baarlamaanka dhexdiisa aan dood ku haynin ma garat maxaa laba deegaan doorasho loogu koobaya gad 6 gobol 6 degme koonta dhexdaba waa lagu qaban karay doorashada ma garat degmada aan ka imid ceel waa qaal dhaha amsoma xataa joogto doorasho waa lagu qaban karay maxaa diiday wax diiday ma jirin nimanka siyaasiyiinta ayaga danahooda u arkay danahoodii hadda ayaga ku dagaalamay waa ku heshiin way marka inay isbaaro ay ka dhigaan dantooda kaliya ma ahan. Soomaaliya waxaa dan ugu jirtaa dhalinyaro badan oo shaqo heli lahayd mashaariic badan oo dalka laga fulin lahaa kulli waxay u xaniban yihiin caalamka waxay leeyihiin dowlad walba miisaaniyadeeda 4 sano ku salaysan tahay. si wanaagsan waqtigii dowladdan loogu talagalay in la caawiyo waa dhamaaday. waa maasanta xildhibaane dadka laba deegaan doorasho ama hal deegaan doorashada aad uga soo horjeeda waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in heshiis fiican uusan kala dhaxaynin madaxweynaha maamul goboleedkaas taa beddelkeedana ay diidan yihiin in tusaale ahaan ay Garowe tagaan, tusaale ahaan ay Kismaayo tagaan, tusaale ahaan ay Baydhabo tagaan beddelkii ay tagi lahaayeen Garbaharey iyo Boosaaso iyo Baraawe si marka iyagu xildhibaanimadooda ay uga soo qaataan xagga oo dadkoodii markaas ay u dhex galaan. arrimaha noocaas haddii ay jiraan qaarna ay madaxdii maamul goboleedyada carar ka yihiin qaarna ay madaxweynihii qaranka carar ka yihiin ayadana oo ay leeyihiin labada dhinac baa loo kala jaban yahay sidee loogu heshiin karaa dhinac in laada? taas waa midda labaad. haddii dib u furis lagu sameeyay heshiiskii 17 September madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu laftigiisa shir jaraa'id dhawaan qabtay kaga hadlay arrimaha khilaafaadka iyo dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya wuxuu sheegay inay qayb ka noqdaan midowga musharaxiinta waxa la yiraahdaa arrimaha looga hadlaya dhinaca doorashooyinka oo qaybtooda ka noqdaan. soo suuragal ma in noqon la cusub marka haddana iyaguna lagu biiriyo oo uu noqdo heshiisku laftigiisa mid daba dheeraado isqabqabsi kale ay ka dhashaan? maya horta ani absolutely waaba ka soo horjeeda Xasan Sheekh adiga iyo aniga waxba naga duwana sabab uu shirka u soo fariisto ama Sheekh Shariif oo saaxiibkay ama Cabdiraxmaan Cabshakuur oo looga qayb geliyo shirka de sharciyad dastuuri ah ma lahan heshiiska 17 September kuma qorra caqliga saliimka ah xaqa muwaadinka ilaalinayana meel uu kaga qoran yahay ma jirto. Xasan Sheekh waa madaxweynihii hore ee Soomaaliyeed waa xildhibaan ka mid ah baarlamaanka tobnaad waa nin maamuus iyo xasaanad leh بكل احترام ولا احترام يا لكن هذا كما دونا
xildhibaan cabdi cali wariye maxamed cibaar kama duwana shirkana dee haddii qofkii qayliyaba la yidhaahdo ha loo furo dad tiro badan oo waxaa imaanaya shirka loo furayo ma garatay si wanaagsan marka dee soomaalidu xerada albaabka hala furo cid walba ha soo gasho waxay soo xasuusinaysaa riwaayadaha iyo shaneemooyinka gacaanka waqtigiisii markii la celin waayo beledweyne iyo burca iyo ugu dhib badnaa howladu markay riwaayad geeyaan albaabka in la furo albaabka markii la furo waxaa dhici jirtay in riwaayadiiba ay nimankii dhigaya ay dhigi weynaayaan ma garatay marka dee albaab cid walba loo furi kara ma ahan taasaan ka leeyahay tan labada deegaan niyahow boob madaxweyne farmaajo runta baan ka hadlayna mise waxaan iska sheekeynaynaa ani emotional waa ka tegey rational u hadlaya madaxweyne farmaajo garbahare iyo hiiraan iyo baydhabo meelaha uu jecel yahay wuxuu u geynaya inuu boobuu rabaa waa aragnay aqalka sar u boobe ma garatay sidaa u shaqeynaya taliyihiisii nabad sugidda xoog kursi hadda galmudug uga soo qaatay oo laga daba qaylinaya weli taliyi nabad sugidda wey ma garatay waa la eedeynaya axmed madoobe wixii loo geeyo gacantiisay galaysaa jaabku gashanaya qoorqoor wixii loo geeyo waa boobaa jaabku gashanaya dani wixii loo waxaas cid oo dadka ciyaal maaha been looma sheegayo ya ha loo daayo doorashadan doorasho boob inay tahay ani waa ka hadlay waxaan ka hadlay sanad ka hor 2 sano ka hor sanad iyo bar ka hor ya waa la boobaya waa la isboobaya doorasho dad banaa waa la isku raacay ayagaa codsaday baarlamaankii uu ogolaaday hal isboob meeshii oo laakiin bishardiga kaliya u baahnaa waxay doorashada la soo afjaro haddii hal deegaan doorasho lagu soo afjaraay asna inta oo deegaan doorashada uu gacantiisa ku haya ha boobo madaxweyne farmaajo kuwa kalena inta ay gacantooda ku hayaan ha boobaan wixii dhamma boob ha noqoto waa boob wayba ani hadda ku sheegay doorasho dad badan oo hadda socota xaaraan waaye hadda aan weli kursi raadinayo oo ay adag tahay qof inuu saas clear u noqon karo oo ka hadli karo si rational u hadli karo marka inaan waayo kursigaan aniga culays badan ma igu hayso ya laakiin waxa culays igu hayo waxa dawladdan aniga dhiiga iga galay saaxiib badan aan ku waayay 20 sano u soo shaqeynayay inay hore u socotaan rabaan ya ma haysano alternative ma jiro ama axmedooba ku boobaya ama farmaajo ku boobaya ya aniga marka in axmedooba iboobay in farmaajo iboobo waxay igu kala duwan tahay malaha ya kursiga haddii cidi boobayso cidii boobaysa boobta horta qof aniga deegaankayga ka yimid unbaa kursiga ku fariisanaya xaq u leeyahay muwaadin kaloo soomaaliyeed oo xaq u leh in la doorto uuna waxna doortaa kursiga soo helay marka aniga waxaan qabaa taa inaanan walwal laga dhigin haddii hal doorasho deegaan doorasho ay doorashadu dhaqso kusoo gabagaboobi karto ya hala geey madaxweyne farmaajo waxba kama lumaayaan ha tanaasulo deegaan doorashooyinka uu gacanta ku haya ha soo boobo sidii saaxiibadiis haddaba waa boobaayeen ha soo boobo nimanka kalena ha u daayo deegaan doorashadooda inay soo boobaan baashana ha soo gabagabowdo doorashadad baa walba xaaraan ay ahayd xaq iyo free election wax la dhihi karo xor ma ahayn marka dadkii aan been loo sheegin dadkii aan la wareerin ilma adeeryaaro doorashadan soo afjara axmedoobo boob inta kuu timaada farmaajo boob inta kuu timaada kullay dee waa boobaysaay laakiin dadkan soomaaliyeed ee dhibaataysan ee abaaruhu ay hayaan maxaa la yidhaha dhalinyaradan tirada badan ee jaamacadaha soo dhammaynaysa iskoolka soo dhammaynaysa ee shaqa la-aanta ah si aan fursado ugu abuurno dawlad cusub oo budget leh oo awalba miisaaniyadeen nagu filnayna caalam ay ku tiirsanayde caalamka miisaaniyad waxay furayaan markii dawlad cusub ay timaado naga soo gabagabeeya fursadda dhalinyaradan kabkeenii miisaaniyadaho imaanaya meesha ay ku xiran yihiin waa in doorashadan lasoo gabagabeeyo deegaan doorasho mid laga dhigo nin walba tiisa ha boobo dhibka dadka ka daaya 2 maalmood shirkan xamar joogo kusoo abjaray ilaahay haddaa taqaanaan oo dalkan iyo dadkan aad ka naxaysaan waad mahadsan tahay waxyaabaha khilaafaadka uu ka dhashay waxaa kamid a guddigii doorashooyinka oo iyaguna la kala diray gaar ahaana guddoomiyihii oo isagu xilka laga qaaday sida ay sheegeen qaybo kale oo kamid a isla guddiga doorashada waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa kamid a inuu ku milmay arrimaha dhanka siyaasadda sidoo kalena dhinaca u janjeersaday waxaa la wada ogyahay in qolo walba iyadoo ay soo qoratay guddiyadeeda doorashada sida maamul goboleedyada iyo waxyaabaha lamidka guddoomiyaha iyo xubnaha la socdana ay ka yimaadeen siyaasiyiinta kale oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu iyaguna ay qayb ka yihiin haddii qolo walba guddigeedii doorasho iyadoo ay soo qoratay oo shalay iyadoo ay meesha la imaadeen la isku waafaqay la isku arkay la iskuna afgartay in doorasho ay sidaasi ku galaan
kuwa hadda imaan doono ma waxay ka duwan yihiin kuwii ka horreeyey ee rabitaanka iyaguna ku yimid maya aniga si fududaan ku tusaya again nimankaa markii la dooranayay nin walba wuxuu u doortay kuwii maxaa la dhahaa masaartii uu wax ku goosan lahaa waxaan ka hadlaynay ya kursiga jubbaland madaxweyne axmedooba xukuumad dadka uu soo dooranaya dadkii asaga uu masaartii u noqon lahaa deni sidoo kale farmaajo kuwa kusoo darsaday kuwii masaarta asaga u noqon lahaa oo maxaa la yidhaahdaa uu wax ku goosan lahaa nin walba usoo doortay ma garat ani hal talaan u haya guddiga doorashada guddigii ugu horreeyey oo doorasho oo dalkan u yeesho maaha 2012 committee oo vetting oo guddi ahaa jiray oo gudoomiye xaliim yarey iyo ninkalo shariif liiraan saaxiibana uu gudoomiye ka ahaa si fiican ay u maamuleen ya waana la soo dhisay shariif xasanaa nin keenay nin cabdiweli gaasaa keenay saan oo kale mar walba siyaasiyiintaa keenaya laakiin dad aqoon lahoo waxay ahaayeen gartee kursiga markii la keenay ayagoo waxay xeerin karaanna xeerinaya laakiin haddana mas-uuliyaddan inay ayago ku dhacayso dad ogaa ya oday dhaqameedaa qoraayay oday dhaqameedyada qaarkood shuruudihii laga rabay ma buuxin ya beeshaydaa kamid ahayd 14 kursi gabaraana laga rabay hal gabar ma aanan geyn si wanaagsan cabdiweli gaas beeshiisaa kamid ahayd hal gabar ma ayna geyn ma garat farsamooyinay qaarna isticmaaleen qaar awooday isticmaaleen mar walba cadaalad darro waa jiraysa aad iyo aad ma garat marka yaa lagu mashquulin guddiga ani talaa idin haya ilaah rag idinka dhigay iyo gabdho aqoon-yahanaa fursadaa hesheen ama farmaajo ha ku keeno axmedooba ha ku keeno ama ha ku keeno deni ha ku keeno ama qoorqoor ha ku keeno ama laftigareen ha ku keeno wixii minimum aa xeerin karta xeeri oo soomaalaan nahay marka lagu keenaya laga yaaba marka hore seedi iyo qaraabo iyo in adeer iyo in lagugu keenay xeeri laakiin ogow adiga mustaqbalkaaga wuxuu ku xiran yahay adiga waxa hadda aa qabato oo taariikhda soomaaliya uga tegayso berri teska masterka iyo PhD da iyo bachelorka dadka qoraya siyaasadda waa lagugu qori doonaa waa lagugu xusi doonaa marka adiga waxaa marka ku habboon wixii aa xeerin karto oo xeeri laakiin horta qof madax banaana tahay doorashadan la isku qabsanaayo oo dhan xaqiiqdii cidda xukunta idinka way maba ahaynba in hadda xalano la fariisto oo madaxweyneyaal iyo ay fariistaan haddaa idinka roolkiina iyo awooddiina aa fahamsan tihiin doorasho idinkaa u yeerin lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweynaha federaalka ra-iisul wasaaraha federaalka waxoo dhan idinkaa u yeerin lahaa idinka waayo qofka mandate-ka u haysta oo baarlamaano idin siiyey madaxdii idin magacaawdina maalinka idin magacaabeen idin siiyeen liidiina dhaari inaa wax xaqa oo cadaalada aa samayn doontaan soomaaliha tihiin musuqa dalka ugu horreeya adduunkaan nahay sanadkii oo soddonaad ma ka bixi doontaan laakiin adliista mustaqbalkiina ka fakera oo wax u xeeriya oo idinka oo dee ciddii aa u xeerin kartaan seediga iyo walaalka iyo adeerka iyo ninkii xafiiskiisa aa ka shaqaynayso shala ku keensaday soomaaliya tahay kulley musuq maasuq kama maarmay sida xaaji aadan afqalooca ka hadlay musuq maasuq waa meherada soomaaliya haddana taariikhda ha ku gelin ceebtii ugu liidatay ee ugu xugelin haddiise guddi madax bannaan oo dalkan badbaadinaya oo jarahaya noqda ama fiid ahaada ama siid ahaada bal teleefono isa dalkaa idinkaa badbaadin kara madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne dowlad goboleed midkoodna maanta uma haysto awood sharciyeed idinkaa u haysta doorashada waxaad dhahdaan xalaalna dhahdaan xaaraanna waa xaaraan wixii hadda laisku haystaba idinkaa xaaraameynaya idinka iyo guddigiina khilaafaad marka hurdada ka toosa dadkan abaaraha u dhimanaya ee jilaalkiina hadduu bilaabanaya xoololeeya oo sima iyo dabadheerba mid ka daran yaa hadda imaanaysa galay inay dadkan wax u qabatana waxay ku mashquulsan tahay kursi inay soo dhacdo oo shaqadaa iska lahaa xildhibaanay raadinaya marka cid wal dalkan ka fakeraysa ma lahane bal 4 bilood oo jilaalka bilaha dambe si wax u badbaadaan bishaan doorashada soo gabagabay idinka idinku xiran tahay nin walba dhagaha iyo indhaha ka qabso ninkii ku soo magacaabay meesha ku keensaday hoos waxaa ka xeerin karta ka xeeri laakiin danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta adoo u danaynaya hore u soco waad mahadsan tahay khilaaf baa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu eed buu jeediyey wuxuu yidhi waxaa la weeraray xafiiskaygii sidoo kalena afgembi ayaa la igu sameeyey ayuu raadeen sidoo kale ra-iisul wasaaraha intaa kadib guddi baa la magacaabay ka kooban 5 xubnood oo ay qayb ka yihiin wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka waxbarashada darajo ahaan ninka ugu sarreeya taliyaha ciidamada Soomaaliya Bashiir Goob isaguna wasiiradaasi kamid ah iyo xubno kale
waxaa aada loogu eedeynaya ra-iisul wasaaruhu inay ka mid yihiin dad isaga ka agdhow siyaasad ahaan marka loo fiiriyo guddigan isaga uu magacaabay. dhanka kale waxaa soo baxaya in uu doonayo inuu cadaadis ku saaro iyaduna arrintan ku saabsan dhanka afgembiga villa Soomaaliya waxyaabo lamid khilaafkiisa uu sii xoogaysto. arrimahan markaad eegto ma ahayd ra-iisul wasaaruhu wixii lagu sameeyey afgembi waa kow. midda labaad guddigan iyadu uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu dhexdhexaadnimo iyaduna ma magacaabay. aniga haddaa xaqiiqdii ka hadlo waa ayaan daro wallahi waa ayaan daro shacabka soomaaliyeed indhergaradka aqoon-yahanka waa ayaan daro inqilaab iyo inqilaab kasoo horjeeda waxa la dhaho inaan ka hadleen xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-isul wasaaraha ninkaa aqoonin 200 tallaabo isuma jiraan. xafiiska ra-isul wasaaraha iyo iridda xafiiska madaxweynaha laga gelayo 100 tallaabo inay dhan yihiin ma hubo ya ciidamada ilaalinayo guutada madaxtooyada la dhahaa labadoodaba unitna xafiiska ra-isul wasaaraha laga xukumaa unitna xafiiska madaxweynaha laga xukumaa. maxaa la inqilaabaya wax inqilaabaya kee wax inqilaabaya yay amar ka qaadanaya taliyaha oo ciidanka ra-isul wasaarahana intaa ogaa ra-isul wasaaruhu ka qaadanayay taliyaha ciidanka oo madaxweynuhu ka qaadanayay taliyaha guud oo madaxtooyada inta badan agaasimaha oo xogaha joogtada ee xafiiska madaxweynaha yaa dhaqaalay iyo dhinaca xukuma oo u janjeeray waa laga yaabaa in oo la isku dayay xafiiska ra-isul wasaaraha in laga xirto in kan la sameeyo laakiin aniga waxaan u arkaa waxaas suunka hoostiisa ya waxaas in laga sheekeeyo candha iyo suunka hoostiisa away ma garatay aniga waxaan kula talin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waa nimayahow dalkan madaxiisii idinka ah hay-addii fulinta marka la leeyahay annaga hadda xildhibaanada kuwa facebook waxay igu soo qorahay abaartii maxaa u qabatay deegaanka ceelwaq maxaa u qabatay gobolka geda maxaa u qabatay idinka waay nimanka la rabo gawdo inaa wax u qabataan ceel waa u qabataan aniga shacabkayga inaa is aragna maaha ceel in la qodayo idinkaa lacagtiyadii haysto idinkaa ahayd inaa waxaasoo dhan qabataan inta wax qabad iyo wax walba inta gabteen inaa maanta shacabka soomaaliyeed kuma waawilisaan kuma dadaalisaan albaabkaan ma gelaysid iyo albaabkaan ma gelay sidii laba naagood oo laisla qabo oo maseersan waa ayaan darro way hoggaanka dalkana labadiina ma astaashaan haddii arrintan mar dambe ay shacabka soomaaliyeed iyo kusoo noqoto waxaa laga yaabaa soomaalida in waxaas loogu mashquulina in qabiil dadkan loo kala leexiyo qoloba nin ay la safataan la rabaa labadiinaba haddii bahashaan afjari weysaan laba ma gudbaa tihiin dalkan in idinka wada horwareejiya astaahishaan shacabka soomaaliyeedna colaad iyo khilaaf waa kasoo daaleen 30 sano kasoo daaleen halka waxaan idinka rabnaa waxay tahay hoolka xalna waxa kasoo socda doorasho bishan kusoo afdhamaata inay kasoo baxdo oo isku raacdaan oo shacabka soomaaliyeed u fududeysaan haddii lagu dooranayo madaxweynuhu tartankaagaa gelaysaa raggii kula mid ahaa mid walba waa gala waa isku dayay asagoo la leeyahay adaa madaxweyne ah xasan sheekh oo 220 xildhibaan iyo habeen casho kusii Israel ma kamid ahayn ma joogin waa u sabciyeenoo beenay u sheegeen ya haddana adigana waxaa laga yaabaa kuwa is leedahay waa ku dooranayaan oo hadda waa lagu soo saaray hebelaa kuu soo saaray mid adiga soo saaratay malaha ciyaal yararoo xafiiskaaga ka shaqeeya saaxiibkiis habareertiis mid ay dhashay qaraabo mid uu leeyahay iyo xildhibaan kasoo dhig berri markuu magaalada hadhow soo galana adiga iska dhaafa kii soo qoruusan aqoonin mogtahay waa wixii xasan sheekh ku dhacay waa wixii sheekh shariif ku dhacay waa wixii cabdiqaasim ku dhacay marka riya maalmeeda ku jirtaan riya maalmeedkan inta ka baxdaan ya adigana xildhibaan gacantaada ma kusoo qoranaysid oo dadkaan ma kala taqaan madaxweynaha tahay qolaa ku xiran tahay 5 sanadood oo baarlamaanka xildhibaanka ka ahaa iyo 12 sano oo maxaa la yiraahdaa madaxweynayaasha ka horreeyay marka isku dara aan ka ahaa madaxweyne walba qolo ku xirnaa albaabkaas wiilasha taaganaa dalka madaxweyne ka ah xaqiiqdii ya xogta ay idin soo gudbiyaana run u haysataan xogta ay idin sheegaana run u haysataan xaqiiq maaha xildhibaanada hadda lagu soo qoraayo ama ha kuu soo qoro ninaad dirsatay nin walba walaalkiisa iyo qaraabadiisa iyo adeerkiisa soo qoraya ilaahay wuxuu kaa dheefsiyaana leedahay marka bal dardargeli dadka aad kalsoontahay waxay soo boobayaan ha kula soo boobaan ha soo qoraan dardargeli oo golow kaliya bishaan inay soo dhamaato ra-isul wasaarow adigana
ilaahay waa ku cimri dheereeyey maalinkii lagu keenaya 4 bilood waa lagu lahaa anu waxaan ku lahaa waa ka badan doontaa sanad ilaahay waa ku cimri dheereeyey maxaa la yiraahdaa sharaf uga tag isku day bishaan inay kusoo gabagabowdo khilaaf kale uma baahnid madaxweynaha asaa ku fahmi waayey adigu ninaan doorasho u soconin haddaad tahay madaxweynaha waxay ahayd inuu kalkiisha ku gashto ma garatay khilaaf inuu idin dhex gala maba ahayn laakiin asaa fursaddaa lumiyey marka adna ha go-anin dalkan jagadii ugu sarreysaa ilaahay ku siiyey nin dhalinyaraa tahay dad badan oo kaaga soo horreeyey siyaasaddan yaa fursaddaa helin darajada ilaaha bixiyey ilaaha ku siiyey sumcad fiicana ilaa hadda intii aad joogtay aad ku joogtay waa lagu eedeynaya dadka dhan hawada dhegaysan mid inuu kaa masayrsan yahay kuu eedeeya mid inuu ku fashiliye raba kuu eedeeya waxaasoo dhan waxaa ka xigtaa gobonnimo iyo shacabkan inaa u khidmayso adigana taariikhda ah wax fiican ku gasho marka ani waxaan ku oran lahaa adiga iyo madaxweynahaaga iscafiya waxa keliya oo idinka dhexeeya ha noqdaan doorashadan saa kusoo gabagabayn lahaydeen adigana kama celin kartid in la boobo asna kama celin karo laakiin waxa keliya oo samayn kartaan dadka si kale ugu sheega waa soo gabagabaynaa bilaa doorashada lagu qabaynaynaa doorasho xaq iyo xalaal waxaartaan afka ka sheega annaga waa ognahay in doorashadan ay boob noqonayso la boobi doono waana ku qanacsannahay haddii kursigayga lasoo boobo oo nin kala yimaado nin reerkayga unbaa imaan doona laakiin dalkan caqabada haysata iyo colaadan iyo handadaadan joogtada aan dhammaanaynin ka saara una fududeeyo ummadda soomaaliyeed ilaahayna ha naga dhigo kuwii madax ka fiican hadday joogaan kuwa hadda joogan ilaahay ayagoo intaan ka fiican soo celiyo haddii kuwa ka fiican imaanayn ilaahay kuwa ka fiican unoo keeno waayahay aad iyo aad buu umahadsan yahay xildhibaan cabdi cali xasan oo isagu ah ama doctor cabdi cali xasan oo isagu ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iminka baarlamaankiisii kale isaguna la dooranaya kana mid ah musharaxiinta baarlamaanka soomaaliya iyo weliba sidoo kale xililka madaxweyne oo markaa barnaamijka isaguna iigu waramayo aad iyo aad buu umahadsan yahay barnaamijkayga bandhiga oo aad toos uga daawanayseen STN ayaan intaa kusoo gabagabeynaya aniga waa maxamed cibaar baa idinla socodsiinayay tan iyo kulankeena dambe nabadgelyo